san marindo ما ست هذا ما ست بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا دمانتين وجوه يا مدحوينها الدولة الفدرالية الصومالية محمد عبد الله محمد فرماتشو إيو مدحوينها عمروتا فدين على مساركيسة madaxweynayaasha gobolgoboleedyada iyo martisharafta kale ka soo qaybgashay xafladda quruxda badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer galmudug iyo madaxdooda iyo degmada cadaado soo dhaweyntii iyo marxabeyntii wanaagsanayd ee la soo dhaweeyay aad iyo aad bay mahadsan mudanayaal iyo marwooyin sharaf ayay u tahay aniga iyo wafdigayga inaan soo ajiibno casuumaddii aada noo fidiseen inaan idinkala qayb galno xafladda calaamasaarka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaan leeyahay madaxweyne hambaryo dadka reer galmudug waxaan u rajeynayaa nabad gool iyo horumar mudanayaal iyo marweyn annagu haddaanu nahay reer puntland waxaa maanta dalbaynaa diyaarna u nahay inaan gacan ka geysano galmudug oo gudaheeda iyo dariskeeda ay nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa sheegay maalintii la doortay in uu ka shaqaynayo nabadda galmudug gudaheeda iyo dariskeeda ay la wadaagto hadalkaas aad ayuu noo soo jiitay waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan kugu siino hirgelinta ballanqaadkaas mudanayaal iyo marweyn puntland iyo galmudug waxay wadaagaan darisnimo daaqsin dhalasho ganacsi iyo sokayanimo haddaba si intaasi ay u miro dhalaan waxaan u baahannahay inaan maanta laga bilaabo colaadda soo noqnoqotay la joojiyo tunta nabadda loo dhaqaaqo xuduudaha sharciga ee soo jireentinka ahna la ixtiraamo siyaasiyiinta iyo hoggaankuna shacabka u horseedaan ku wada noolaanshaha nabad iyo walaaltinimo madaxweyne xaaf iyo wafdi reer galmuduga ayaa dabayaaqadii sanadkii 2015 booqasho nabadeed loogu yimid gaalkacyo wada hadal kadib waxaan ku guulaysanay in dibkii jiray aan nabad ku soo dabaalo si wada jira maanta waxaa xilkii galmudug qabtay mudane xaaf waxaan kaa rajaynaynaa inaad nabaddii sidaad u horumarisid nagala shaqaysid sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in khilaafka galmudug dhexdiisa aan lagu dhammeeyo wada hadal wax wadaag walaaltinimo iyo isu tanaasul gobollada dhexe ee Soomaaliya waxay u baahan yihiin nabad iyo amni si ay ugu soo jeestaan horumarinta dhaqaalaha deegaanadooda iyo kor u qaadista nolosha shacabkooda mudanayaal iyo marweyn si looga gudbo dagaalkii sokeeye ee kala qaybshay shacabka Soomaaliyeed tagaadiyeedna dowladnimadeennii iyadoo la tixgelinayo duruufaha dalka iyo dadku ku sugan yihiin ayaa ummadda reer Puntland waxay hormuud ka noqotay nidaamka federaaliga oo ay ujeedadiisu tahay dibudhiska dalka si loo simeeyo waxaa mudan in la xuso in gobolkii u dambeeyay Hirshabeelle maanta leeyahay dhammaan awoodihii dawliga ah in maanta dalka si siman uga socdo horumar iyo dadaal loogu adeegayo shacbiga Soomaaliyeed ee ku kala nool dowlad goboleedyada dalka nidaamkaas ayaa 20 sano ka hor reer Puntland u doorteen inuu yahay dariiqa ugu habboon ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed dib loogu yeeleeri karo mudanayaal iyo marweyn Puntland galmudug iyo Soomaaliya inteeda kaleba waa inay iska kaashadaan la dagaalanka burcadiimeedka ku soo duulay dadkii Soomaaliyeed
ugu dambeyntii waxaa ii muuqda Soomaaliya oo xor ah, Soomaaliya federaal ah, Soomaaliya dimuqraadiga ah, Soomaaliya oo karaamo iyo sharaf ku leh beesha caalamka, si hufan ugu adeegta shacabkeeda, awood u leh inay difaacdo sharafta iyo karaamada muwaadinka Soomaaliyeed. waxaa ii muuqda Soomaaliya oo nabad ah, is-ammaan garaysa, nabadna kula nool dariskeeda. waxaan idin leeyahay gool iyo midnimo. aad iyo aad u wanaagsan. Thank you.